وعن أو نكسن داوديال كسو دوادا ورركي ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena doornimada waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo diiday dalab uga yimid ra'iisul wasaare Roble kaas oo ahaa in wada hadal la dhex dhigo iyadoo hadda lagu jiro xilliga doorashada oo ay guusho u muuqato inuu u dhow yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalabka ra'iisul wasaare Roble ayaa loo soo mariyay siyaasiyiin kamid ah golaha wasiirada oo aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo Roble ayaana la sheegay dalabkaasi inuu u cuskanayo ama sababta ku riixda ay tahay in xayiraad ay dhawaan ku soo rogtay dowladda Mareykanka sidoo kalena uu ku guuldareystay arrimaha doorashooyinka dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa dalabkiisa waxa kale oo sabab looga dhigay in uu ka cabsanayo in madaxweyne Farmaajo gacanta loo galiyo arrimaha doorashooyinka taana uu doonayo inuu hadda isagu si toos ah ugu wareejiyo arrimaha doorashooyinka dalka rajadiga Roble iyo sidoo kale mucaaradka ayaa banaanka u soo baxay xilli wali aan la gaarin doorashooyinka oo ay socoto kaliya dowladtuska fil Soomaaliya iyo sidoo kale guulaha ay ka gaartay baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanadii ugu dambeeyay guulaha ay ka soo hoyeen mucaaradka ayaa u muuqda kuwa aad u niyad jabsan iyagoona dhawaan ku kordhistay 20 casho oo la doonayo 15 bisha Maaj inay ku soo gabagabeeyaan doorashada xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne Dani oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku sigtay in afgambi lagu sameeyo xilli ay go'aan ku gaareen qaar kamid ah isimada iyo sidoo kale saraakiisha maamulkaasi in Saciid Dani si awood ah kursiga looga turo Dani ayaa la sheegay isagoo saacad yar ku sugan magaalada Boosaaso inuu hadda dib ugu soo laabanayo magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal magaalada Garowe ayaa la sheegay xalay ilaa habeen hore inuu ka socday dhaqdhaqaaq lagu doonayay in lagu afgambiyo Saciid Cabdullaahi Dani oo markaas ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Bari inta uusan gaarin shalay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari haddaba xaaladda Saciid Dani iyo sidoo kale go'aanka isimada shirar badan oo loo fariistay oo lagu kala kacay sidoo kale siyaasiyiinta kuraasdoon ee ka socda fil Soomaaliya ee ku sugan magaalada Boosaaso saameynta BSF iyo sidoo kale khilaafka DP World ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan xaaladaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda Ukraine Russia iyo sidoo kale dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay dalka Itoobiya iyo daawada idin hayna haddii ay tahay markii soo booqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay ra'iisul wasaare Roble dalab uu diray madaxweyne Farmaajo iyo gacan seer kala kulmay kadib markii madaxweynuhu uu diiday dalabka uu soo dirsaday ra'iisul wasaare Roble ee loo soo mariyay qaar ka mid ah golaha wasiirada khaasatan wasiiro uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ra'iisul wasaare Roble ayaa dalabkiisa ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu rabo inuu kala hadlo xaaladda dalka sidoo kalena ay isu dhawaadaan maadaama ay dhowr bilood ku kala maqnaayeen khilaaf aad u xooggan oo soo kala dhaxgalay iyo sidoo kale warqado la soo mariyay baraha bulshada dalabka ra'iisul wasaare Roble ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka ay xayiraad iyo sidoo kale cunaqabatayn isugu dartay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida oo intooda badan ahaa mucaaradka Roble arinta ka cararaya ayaa doonaya inuu doorashada ku wareejiyo madaxweyne Farmaajo inta aysan Mareykanku iyo sidoo kale qaramada midoobay aysan gacanta u galin wuxuu sidoo kale doonayaa hadda inuu heshiis la saxiixdo ama la heshiiyo madaxweyne Farmaajo maadaama hadda ay 90% caddahay inuu yahay madaxweynaha soo laabanaya cabsida ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa la mid ah ama la qaba mucaaradka intooda kale oo ka cabsi qaba in fil Soomaaliya oo mar kale dib ugu soo laabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la eego xildhibaanada uu gacanta ku hayo kaliya kama cabsanayaan xildhibaanada iyo sidoo kale khidada fil Soomaaliya ee ciyaarayso ayaa ah kuwa aan caadi ahayn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanadii ugu badnaa soo saartay xilligu uu ahaa madaxweynaha balse tani waa ka duwan tahay tii hore waxa uu haystaa xildhibaanada taageersan aaminsan sidoo kale boqolkiiba boqol isku haleyn kara codkooda iyo kuwa sidoo kale mucaarad ku ahaa balse dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda la xadido oo markii la soo doortay guddiga ku yaala magaalada Muqdisho lagu xareeyay mucaaradku boqolkiiba boqol way hubaan in xildhibaanadaasi aysan heli karin oo xodxodo karin sidoo kalena ballanqaad aysan u sameyn karin waxayna ku qasban yihiin inay sameeyaan wado walba ay doorashada ku hor istaagi doonaan balse ra'iisul wasaare Roble ayaa sida muuqata ka baxay garabkooda isagoona doonaya in hadda uu la heshiiyo madaxweyne Farmaajo in muddo ay siisteen
Roble ayaa dhawaanahanba gacanta ku hayay TV-ga qaranka iyo qaar ka mid ah wasaaradaha halkii uu lumiyay dhammaan taliyaasha ciidanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka sida militariga, nabad sugidda, booliska iyo sidoo kale asluubta. isagoo banaanka ku soo dhacay ayuu kaliya waxa uu ciirsaday labada wasiir oo saaxiib dhow yihiin, wasiirka amniga iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo aan xitaa tagi karin wasaaradaha ay ku magacaaban yihiin. marar badan ayuu isku dayay siyaasiyiin ama xildhibaano xildoon ahaa oo ka socday dhanka filla Soomaaliya in uu ka horjoogsado airportka, balse arrintaasi waa uu ku hungoobay maadaama uusan wax ciidan ah gacanta ku haynin. hadda Roble talafariisa oo ay ka baxday waxaanu ku qasban yahay inuu la heshiiyo filla Soomaaliya si uu u sii joogo kursiga, taa oo ay caddahay inaysan suuragal ahayn maadaama xilligii madaxweyne Farmaajo uu garab uga baahnaa uu ka soo horjeestay sidoo kalena dhabarka toogasho ku sameeyey uu ka soo raacay dad ay markaasi isku hayb ahaayeen. ra'iisul wasaare Roble waxa uu doonayaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha kale ee la soo magacaabi doono, balse madaxweyne Farmaajo waa caddahay inuusan dib dambe u soo celin doonin, waana sababta keentay in dalabkiisa uu ku gacan sayro. filla Soomaaliya ayaana la sheegay inay ku jawaabtay hadalka Roble uu soo diray madaxweyne Farmaajo inay sugayaan awaamiirta ay dowladda Mareykanka siinayso Roble ee ah in uu iska wareejiyo hoggaanka doorashooyinka qaranka, sidoo kalena maxkamad la soo taago maadaama uu ku eedeysan yahay dambiye aad u culus. dhinaca kale Saciidani ayaa ku sigtay in afgambi lagu sameeyo kadib markii qaar ka mid ah isimada ay go'aan ku soo rogeen in xilka laga tuuro maadaama ay yihiin mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee marjaca u ah maamulka Puntland. Boqor Burhaan oo kulan la qaatay shalay Saciid Cabdullaahi Dani xilli uu safar degdeg ah ku tagay magaalada Boosaaso oo loo ogolaaday inuu magaalada gudaha u galo, ayaa kulankaasi 3 jeer oo la soo laabtay waxa uu noqday mid la isaga kacay fadhiga, isagoo Saciidani uu ku adkaystay inuu yahay musharax madaxweyne, sidoo kalena uusan diyaar u ahayn inuu dhiibo ama sakada kursiga uu Puntland u hayo, iyo sidoo kale arinta DP World oo diiday inuu ka wareejiyo dekada iyo khilaafkii xooganaa ee ka dhaxeeyay dhinaca BSF iyo xildhibaanada ismada Puntland ay sheegeen inay u gacan geliyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa magaalada Boosaaso ku sugan weli qaar ka mid ah siyaasiyiinta xildhibaanada ah iyo qaarkood xildhibaano doonayaan qaar wasiiro ah oo ka socda filla Soomaaliya oo xildoon ah, kuwaasi uu Dani diidan yahay inuu xil siiyo. waxaana ka mid ah wasiir Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta, sidoo kalena ah shakhsiga ay isugu dhow yihiin golaha wasiirada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wasiir Jamaal ayaa markii uu ka degay garoonka magaalada Garowe dhammaadkii sanadkii tagay ayay isku dayeen qaar ka mid ah maamulka Puntland inay qashqashaad ku sameeyaan, iyadoona markii dambe ay ciidamadiisa u gudbeen, waxayna isku dayeen mararka qaar xitaa inay si shirqool ah u dilaan xilli uu ku sugnaa gobolka Highland ee maamulka Puntland. haddaba doorashada ayaa si caadi ah ugu socota deegaanada marka laga reebo magaalooyinka Garbaharey iyo sidoo kale Boosaaso iyo Gaalkacyo oo dhawaan lagu wado inay doorashadu ka dhacdo. Saciidani ayaana sida aan idin sheegay ka badbaaday afgambi kadib markii dhaqdhaqaaq ciidan iyo sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ku ah laga dareemay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. waxaana la sheegay hadda inuu soo kicitamayo magaalada Garowe si uu arrintaasi isaga caabiyo. lama oga xaaladda iyo sidoo kale halka ay ku dambeynayso Puntland waxyaabaha ka soconaya, haddase waxay og tahay in xaalku uu yahay mid iska caadi ah. Saciidani waxa u furan laba wadood inuu iscasilo oo u tartamo musharaxnimada Soomaaliya iyo sidoo kale inuu ku ekaado maamulka uu hadda mas'uulka ka yahay, sidoo kalena faraha uu kala baxo xildhibaanada ka soo baxaya gobolka Bari ee magaalada Boosaaso. halka waxaa inooga wararkeena doorrimaad ee tamarkuba subax channelka Calanka TV. subscribe oo faraga marka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.